السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان salaamaya dhalinyarada ku xiran bartayda youtube-ka ustaad sharmaarka idin leh galab wanaagsan muddo waynu kala mashquulnay oo sababo jira awgood safaro badan oo aan la kulmay laakiin alxamdulilah ilaahay waa soo nabad aruuriyey waxaan rabaa insha allah maanta 10 yar oo kooban inaynu waxaynu oran karnaa waa iska waano iyo dardargelin insha allah horta aad iyo aad bay u mahadsan yihiin ardayda fariimaha badan ii soo dirta ku saabsan casharada miyaa naga joojisay miyay dhammaadeen wax dhammaada male insha allah casharadu way soconayaan inta cumriga dhiman yahay oo xirfadan aynu ku jirno way soconayaan casharadu anuu markasta waxaan aad iyo aad ugu dadaali doonaa inaan idin caawiyo dhammaantiin dhalinyarada ugu xiran soomaalida xirfadan walaalayaal sidaa ujeedaan waa iska safar weeye mararka qaar qoraallo waxaa jira aad iyo aad aan ardayda iisoo qoraan oo ustaad aad baa u mahadsan tahay casharadaada aad bay ii caawiyeen waa ka waxyaabaha aan jeclahay inay aad idin caawiyaan markaanu ka imaano salaanta aynu kasoo wareegno update-ka oo ah inaan safar ku maqnaa casharadu waxay ahaanayaan kuwa taxanaa dooleedmo waxaa laga yaabaa marka laakiin frequency-gii badnaa ayaan xoogaha ka yaraa joojinayaa sababtoo ah casharadu waawar waa iska soo dhigi jiray laakiin hadda waxaa laga yaabaa bishii 2 mar ama 3 mar inaan soo dhigi doono dooleedmo sababo jira awgood inta ka faa'iidaysatana dee ajri xasanaad allah ka siiyo anigu wax kale kama raba naftiina inaad ku anfacdaan oo aad dadaashaan maanta waxaa horta lacagta hadda waa naga tuurto candlekan baa naga tuuray stop loss-kan halkan uu yaalay meeshaas hadda uu ku dhacay waa 87.198 almost lacag aad u fiican bay one fashion fiican baynu ka qabanay marka dib ma leh waxaan kasoo qaadanay risk entry buu ahaa korkaas ayaan kasoo qaadanay marka dib ma leh insha allah focus ma saarayno fursadaha kale oo iska badan yihiin waxaan rabaa insha allah maanta inaan ka hadlo nolosha guud maaha waxa ka hadlayna trading maaha psychology maaha let's talk about the life nolosha ka hadlayna walaalayaal horta noloshu waxay dhahaan life is not fair noloshu maaha fair maaha ma uusinna dadka ayay ka wadaan laakiin aniga ahaanteeda through experience waxaan ogaaday life is balance noloshu waa balance fairkan iyo marka halka laga imaado noloshu waa balance weeye balancena waxay u tahay wax waaye waxaanu halkan u joogno marka adduunka la imaado waa imtixaankaas waa marka laga sameeyaa marka balance weeye kii maanta marka qof walbana wax weeye noloshiisa wax unbaa ka qarbudsan oo ka halaysa nolol perfect marka ma jirto noloshu marka waa sidaasuu ilaahay ugu talagalay goobo badan waxaa arkaysaa social media markay ku xiran yihiin dadka nolosha ku nool yihiin arkaan waxay u moodaan run bay u moodaan waxaas laakiin maaha qof walba noloshiisu waa nolol qayb waxay leedahay mugdi iyo madow bay leedahay okay mid baa arkaysaa markuu dadka u yaro isla barbardhiga waxay dhahaan oo wuxuu jecel inuu dadka isla barbardhigo hebel saas waa halkaasuu joogaa halkaasuu waxaasuu haystaa waxaasuu sameeya waxaas sidaasuu sameeya laakiin ma garan kartid caqligiisa iyo fikirkiisa iyo noloshiisa wax ku geedaa mana ku hareersan ma garan karta adiga marka sababtaas waa waxaan u dhahay life is balance noloshu waa balance marka maanta kadib waxaan rabaa inaad iska dayso nolosha sidaad u fiirinaysid wax kastaba marka waa fikirkaaga waaye nolosha hadaad u fiirinayso wax qarbudan oo dib badan karaahiye ah oo silic badan sidaas waaye sida ay markasta kuusoo tuurayso laakiin hadaad u fiiriso wax balance ah u baahan dadaal u baahan isbedel u baahan horumarin u baahan isku dayid u baahan geesnimo haddaa u fiirisana mar walba waxay ahaanaysaa mid midaad kusoo tuurto
marka aan intaa ka wareego hadda kadib waxaan rabaa noloshu cycles waxa la ayay leedahay. Cycles waa maxay? wareegyo ayay leedahay, marxalado bay leedahay marto. marxaladda oo aadka dadku qaar markay noloshu ku jiraan periodka markay da ahaan xataa loo fiiriyo cycle waxa iska jira loo yaqaano stagnant. waa cycle sida aad suuqa u taqaan ranging oo kale ah qofku noloshiisa ku jiro wey. cyclekaas markaa dadka markay stagnantiga dareemaan waa yani waxaad moodaysaa lugaha ku haysto ma dhaqaaqaysid mararka qaar. haddii aad xirfad pursue garanaysid sidoo kale ama cilmiga oo kale baranaysid sidoo kale ama iskuul aad ku jirto sidoo kale ama jaamacada baranaysid badi culeysyadaasay dareemaan dhalinyarada. waxba ma moodidba ina dhankaa u dhaqaaqayaan. waqtigii waa taagan yahay, caawimaadii waa taagan tahay, garab istaagii waa taagan tahay, dadaalka aad bixinaysa adiga iyo energyga aad bixinaysa waa taagan yihiin. it doesn't count, wax ku xisaabtamaayo maaha. ama markuu qofku markaa cirka ama cabaar usoo jirsato inuu qofku isdhiibo oo dhaho waxaan iga daa faraha ku haya let me try another thing. wax kale markaa u wareegayo wuxuu moodaa marka waxa kale u wareegayo inuu uga bixi doono stagnantiga, laakiin still waxay uu ku jiraya stagnantiga. markaasuu nolosha ka dhacaya, markaasuu isboojeynaya, markaasuu balwad isku dayaya haddana inuu waxaan boojada uga bixi karo. yani wuxuu isku dayaa route loo yaqaan escapism, inuu ka fakado noloshan, laakiin wuxuusan fahansaneyn it's okay, marxaladda in lagu jiro waa caadi. marka ma ahayn inuu panic sameeyo. panic situation waa maxay? qofku inuu isdhaho keligaa waxaan ku haysataa noloshan, keligaa bay kugu soo jeedaa, markaas dhaho furka u tuuro. waxayd inuu dhaho okay it's alright, qof walba sidan uu soo maray. okay, marka stagnantiga waxaa ku xiga wax loo yaqaano booming, inuu qofka wax walbuu markaa miro dhalinaya oo joogteynaya, hadduu yahay wax akhriskiisii, xirfadiisii, ganacsigiisii u joogteynaya. markuu stagnantiga ku jiro waxaa ku xigo booming, inuu hal mar he become very successful person. okay, markuu cabaar boomingka ku jira yet another qofku markaa daba bini aadan waxyaabo kale sameynaya, lacagtii investment sameynaya, cilmiyo baranaya, still noloshiisa wax kusoo darsami karaa ama ka bixi karaan. cunug baa ka dhiman karaa, gabadhaa ka dhiman karta, iska marxalad dhacda. ganacsigiisa xataa downfall ku imaan karaa, and still again wuxuu galayaa stagnant. so why marka stagnantigan waa maxay? sabab baynu u galaynaa. stagnantiga sababta u galayno waxa weeye imtixaan nolosha caadi ka mid weeye. markaas waa markuu ilaahay subxaana wa tacaala uu fiiriyo addoonkiisa, caqligiisa uu fiiriyo, adkeysigiisa ama uu fiiriyo. buugaag badan oo akhriyay waxay ku tilmaamaan stagnantiga, waxay dhahaan the persistence test, marxaladda tijaabada qofka adkeysigiisa intuu la egyahay weeye. qaarkood iimaanka qaar markoo aaminaada aysan haysan halkaa way ku bajarmaan qaar. okay, waxay sameeyaan waxa loo yaqaano qaar suicide base way isdilaan. waayo boomingkana wuxuu noqonayaa speed waxa loo yaqaan sweet spot, meeluu u barto macaanid markuu arko marka haddana jahwareerka inuu soo galo qofku isdiibaya. marka laakiin ma fahansana inuu panic sameeyo maaha, and still again booming ayuu sameynaya qofkii. sidaas waa marka noloshu waa sidaa. marka chartska hadda arkaysaa waa guusha sida u shaqeyso waaye, waa safarkaas waaye. meel maaha inta la istaago la dhahayo waa guulaystay. safarkaas waaye, waa inuu qofka socdo uu kor u socdo. markasta marka noloshu marxaladahaas kugu soo tuurayso walaalayaal, waa loo baahan yahay in looga gudbo samirka, in looga gudbo akhlaaqda ama disciplineka. maaha inaa eedaysa ilaahay, maaha inaa eedaysa adduunka, maaha inaa eedaysa dalkaa joogto, maaha inaa eedaysa dadkaa ka dhalatay, maaha inaa eedaysa all family members inaa eedaysa maaha. at that moment waa responsible person ayaa tahay. noloshu marka walaalayaal waa sidaas waay. aniga idinla hadlaya
waa ka mid ahay dadka noloshooda sidaas sameynaya cycle-ka qof kastoo aadana uu ka sameyn yahay marka ha arkina dadka idin soo duubaya xaaladda boomingka markay ku sugan yihiin it's alright adiguna waa gelaysaa xaaladdaas tusaale marka dhalinyarada hadda tusaale yar hadda forex waa barataan ma ahan forex markaa imaad isla marka walaalkay ama walaashay inaad noqonaysid booming stageka inaad gelaysid maaha waxyaabaha kugu horeeya waxa waaye marxaladda aad ku jiri doontid ama bilaabi doontid waa stagnant periodka ayaa ka bilaabi doonta oo ah in waxba iskugu kaa tooseynin in waxba aad fahmaynin in waayo it all take timekaasa marka waxa loo yaqaano booming ayaa waxa loo yaqaanaa the stagnant period marka waa marka uu caqliga fiiri waxa ku waajahan oo ku sugan waa xigmad weeye wuxuu ilaahay ka leeyahay imtixaanna weeye waayo caqliga bini aadamka waxa lagu leeyahay neuro pathwayska markuu samaysanayo jidadka iyo xasuusta iyo memoryga iyo markaad samaynaysid xirfadda aad ku jirtid waqtiga qaadata waqtigaasna waa waqti marka ma ahaysan marka xirfadda marka imaad inaad deg deg lacag u samaynaysid deg deg u taajiraysid waa halaag wey waxaa been weyn maaha wax shaqeeya qof walba wuxuu moodayaa markuu ganacsi imaana sidaa marka ha raajicinin hana u moodin aniga iyo qof kale oo cusubba iyo qof kastoo bilow hadda ku jira 5 sano ama 10 sano suuqan ku jiraba kulli waa la soo wada maray marxaladda ya ha yaabin ma heli doontid garab istaag ma heli doontid agab ma heli doontid qof ku fahma ma heli doontid waa chaotic movement weeye waxa waa range baad ku jiraysaa muddo waa inaad u diyaar garowdaa waa inaad qaabisho waa inaad iska ilaaliso wactowga hand out ama gacan qof ina u oydo dadiyaa garab la-aan baa ilaahow saas waaye adduunkana nacay eedisida deegaanka ku sugan tahay it's not that marka caqliga ku sugan yahay stresska ma fakaro laakiin haddii aan hadda kusii sheegaan ku dhahay noloshu waa sidaas cyclekaas waa nolosha cid kale ha u aadin aniga maanta ku fahansiinaa waa midda labaad qof walba walaal qaali noloshiisu dhan bay ka xun tahay dhanna way ka wanaagsan tahay waana human nature waa dabiici nololeed weeye waa wax dabiici weeye ma ahan wax anugu aynu u nahay يعني qof noloshiisa haddii karto this guy is 100 or this person is 100% perfect his life no way wax baa khaldan nolosha qofka qaar baad arkaysaa markuu qof fiiriyo wuxuu leeyahay oh my god this guy wallahi waa iskugu toosanta laakiin you don't have no idea waxaa laga yaabaa hal caado balaa inuu leeyahay noloshiisa wiiqda wax inay noloshiisa ka khatarbalaysan yihiin adi ma garanaysid marka waxaa loo baahanyaa qofka marka inaadan qofna isla barbar dhigin inaadan naquusan noloshan markii uu ku jiro cycleka alle subxaana watacaala aayad buu soo dejiyey muxuu yidhi ha ka quusanina raxmadda alle naxariista alle buu la jeedaa marka marxaladdaa lagu jiro waa cycle cajiib weeye ambiyadii qofkaana soo marin ma jiro cyclekaas nabi maxamed sal alla alay slam soo maray muuse wuu soo maray moses soo maray nabi ciise wuu soo maray nabi ibraahim wuu soo maray aabihiis iyo dadkii deegaanka ahaa waa distress situation waay adiga maanta maxaad rabtaa inaad ka talaabsato why are you looking for shortcuts maxaad u raajicinaysaa inaad hesho meel aad ka dusto fudud maxaad u raajicinaysaa inaad isla markii aad kor aadid waxaan waaye marka su-aasha marka waxay tahay aniga markaan khibrad yeeshay labadan markii lagu sugan yahay kan iyo kan kee qofku uu yahay humble kee buu qofku ku dhismaa kee buu khibrad ka qaataa kee buu ku koraa kee buu ku adadkaadaa waan isweydiiyey qofku markuu kan ku sugan yahay waaye markuu korayo kan waaye markuu qofku noqonayo humble kan waaye qofku markuu shukrinta badinayo kan waaye markuu ilaahay isku dulaynayo kan waaye markuu kibirka iska ilaalinayo kan waaye markuu xigmadda yeelanayo
qofku taa ku sugan yahay waa nolosha qaybtan waa marka qaybta imtixaanka wadata haddana iyadana oo qofku inuu isxijiyo ah oo iska ilaaliyo kibirka qabka isla weynida catifada uu iska ilaalinayo uu la dirirayo okay qaybtan waaye qaybta ku imaanaysa ego inaad dadka la weynaatid inaad dadka telefoonada ka qabo inaad yaa bahasha waxoogaa kusoo gelisa waqti marka labada marka tan waaye tan qofku ku koro wey ku kobco marka tii aad ku kobcisay ku aad adkaanaysa haddaad rabto inaad dejisid ka war oo aad ka tallaabsato maxaad samaynaysaa tii aad casharada ka baranayso ku dhisaysa haddaad rabto inaad dejisid ka war markaan maxaa celin kartaa waxba ma heshin kartid tay boqolkan kusoo gasho wallahi ma celin kartid waa celinay ma haysan kartid you can't manage it marka tan waaye marka tan ilaahay loogu mahdiyo anigana waan ugu mahdi qof kastoo soo hormarin uu ku mahdiya nolosha qaybtaas qayb aad iyo aad u qurux badan weeye wallaahi ma aamini kartid shucuurtaas sida noqon doonto qaybtaa markaa ka baxdo sida ugu shukrin doontay alla subxaana wa tacaala inuu kugu hayay adiga hadda waa sharaysanaysaa you see lack of a lot of things ayaa arkaysaa laptop baadan haysan baa laga yaaba maanta garab baadan haysan baa laga yaaba maanta lacagaa akoon ku furtaan laga yaaba inaada haysan qofku fahmaya inaada haysan yaaban tahay yaa laakiin waxaan ku dhahayaa sug sabab waaye baahidaa dhammaan inaad dareentid sabab waayo adhooda liminta ma shukrin doontid adhooda dhadhanka liminta ma ku macaanaanayso okay marka noloshaas waa qayb waxaa jirta marka noloshan qaybta waaye dadka aadkii aadka nolosha usoo maro oo ka dambeyn dee ma sheegi kara aniga qayb waxaa jirto boqolkiiba 30 dadka ka mid ah oo dhaqaalaha aabbayaashooda iyo familkooda ugu dhinteen iskaga digidamlaya iskala qabsadeen qaybtaas ma garan karaan nolosha noocan ah ayagu wax iskaga sii jirayaan xaalad buuminka haddana cycleka caqabadaha markay sameeyaan dadka ka raajiciyaan inuu xaliyaan waa dadka nolosha jabka sare kasoo dadkan wey dadka adhooda u xaliya oo takhasuska u yeesha markaas halsanina insha allah biidnillahi kariim walaalayaal waa inuu qofku noloshu ku qanco weye marxaladahan weye marxaladaha loo baahan yahay samirka waa meesha ay taalo cadeymaha qofku inuu waxaan u ahaa wuxuu u baahan yahay meeqa ayaan garanayaa dad halkan isku dhiiba meeqa weye tiro ma leh halkaas isku dhiibaan toos u cararaan ma waxay la moodeen marka hadday tan ka cararaan marxaladda waxa kale ay bilaabi doonaan inaysaan lahayn way leedahay you can't cheat ilaahay ma khiyaani kartid noloshana ma khiyaani kartid saad doonto u galgal ma khiyaani kartid marka maanta waxa way casharkaas inaad fahantaan it's okay inaad taagantahay maanta inay wax kuu furfurmi waayaan kaa xirxiran yihiin waa caadi ha arkin dadka social media isla barbar dhigin iska daa waqtigooda soo qaateen jabka waa soo mareen soo dulqaateen it's your time marka taada marka foxka saar ku dhaganoo waddadaada fahan maalintaada oo imaanaysa wax kasta maalinta ay soo jiidan doonto waa imaanayaan wax kasta oo u baahantaa maalinta waa haddii aad kooska si daacada ugu dhagnaato koosku waa maxay waddadaada aa haysatid halka xirfada foxka saaraysid ku dhaganow waxay doonto ahaato blogging baro web development ahaw ethical hacking baro software engineer ahaw trading ahaw whatever skill you aiming to achieve waa inaad ku dhaganaato wey guushuna waa saas haddii marka safarkaas waaye safarka walaalayaal waa joogto wey haddana qofku noloshiisa wax waa imaanaya qadar baa imaanaya haddana waa inuu kasii talaabso socdo it's all that ilaa marka noloshu walaalayaal waa sidaas imtixaanaadkaasay leedahay casharadaasay leedahay waa cajiib walaalayaal khibrado badan bay leedahay iyo xikmado badan
kuwii ka dhexela allaha naga dhigo dhammaanteen allahna dhalinyarada ku cusub xirfadan allah u fududeeyo ayagana u duceynaya xaajigu wuu idin duceeyey dhammaantiin hal dadaal boys and girls xirfadan cid ka xigta male waa baran kartaa macnaha ma inaa qofka walaalkaa ugu xumaatid xirfadda maaha inaad nacsiisid adiga haddaad ku feelgarowdo oo ahaatid safribood inaad noqoto xirfadda dhinac kale uga bootid dadka kale ha barta faraha uga qaad dhammaantiin baan islaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu